dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u daahfurtay qalab casri ah oo loogu talagalay in lagu la socdo hawada dalkeena Soomaaliya. Ismaaciil Mukhtaar Cumar ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya. munaasabad kooban oo ay ka qayb galeen wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xukuumadda Soomaaliya, mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka, saraakiil ka socotay safaaradda Talyaaniga ee ku leeyahay magaalada Muqdisho iyo mas'uuliyiin kale ayaa lagu daahfurayay qalab casri ah kaas oo loogu talagalay in lagu maamulo hawada Soomaaliya horena u soo iibsatay dowladda federaalka Soomaaliya. Ricardo Mardona oo ah mas'uul ka tirsan shirkadda SBA oo laga leeyahay waddanka Talyaaniga isla markaana qalabkan ay ka iibisay dowladda Soomaaliya ayaa ku dhiirigeliyay bulshada Soomaaliyeed inay u adeegaan qarankooda. waxa uu sheegay in qalabkan uu yahay mid casri ah oo loogu talagalay in lagu maamulo hawada waddanka Soomaaliya. Dell'invito suo qua a Mogadiscio e quindi a tutti voi vi ringrazio della possibilità di aver potuto parlare. Waa mahadsantihiin walaal Soomaalinimana waa lagu dhalay hooyadayda Soomaali ah Talyaani waa aabahayga. maanta waan faraxsanahay oo inta ka shaqeeyo oo abtiyaasheena u shaqeeyo oo waddanka u shaqeeyo oo Soomaalida ku soo noqoto wixii hore ahayd. maareeyaha hay'adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Mudane Yuusuf Jaale oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in qalabkan si degdeg ah loo rakibayo isla markaana ay ku shaqayn doonaan howlwadeenada hadda ka howlgala magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, kuwaas oo hadda loo soo wareejinayo xafiiskan cusub ee laga hirgelinayo magaalada Muqdisho. waxaan ku kalsoonahay shaqaalaha jooga Nairobi kartidooda iyo tayadooda muddo dhowna insha Allah aan soo gabagabayn doono qaabkii halkan ay ugu soo guuri lahaayeen iyagoo deegaamo iyo tasiilaad waxay ku shaqayn lahaayeen ay wasaaradda runtii aad isaga xil saartay aan goordhowna ay dhici doonto haddii Ilaahay yiraahdo ficilo ku saabsan qaabkii loo dejin lahaa ay soo bixi doonaan insha Allah. ugu dambeyntii waxaa kulanka soo gunaanaday wasiirka gaadiidka iyo duulista Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad, isaga oo ka hadlay ahamiyadda qalabkan uu u leeyahay Soomaaliya, isagoo meesha ka saaray warar ku tirikuteen ah oo sheegaya in qalabkan la xaday hase yeeshee uu yahay qalabkii ay soo iibsatay dowladda Soomaaliya isla markaana si rasmi ah hadda loogu rakibayo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. maanta waxaa farxad dhammaanteen inoo ah in qalabkii lagu maamuli lahaa hawada Soomaaliya in maanta hortiina lagu furi doono haddii Ilaahay ka raali noqdo oo marqaati ka noqon doontiin haddii Ilaahay ka raali noqdo. muddo badan waan maqalay hawada waa la soo celiyay dadka marka shaki badan ayaa galay sano kasta waxaana la yiraahdaa hawada ayaa la soo celiyay. maanta waxaan idin tusi doonaa qalabkii oo diyaar ah. qalabkani wuxuu yaalay halkan aad arkaysiin hadda konteenarada ku jira ilaa 9 bilood wuxuuna u yaalay qalabkaasi oo meesha ugu xayirnaa khilaaf ka dhaxeeyay shirkadda ama hay'adda maamulaysa hawada Soomaaliya iyo dawladda. waxaa marka aan u mahad celinayaa wasiirkii hore wasaaradda iyo ambassadorkii hore Kenya inoo fadhiyay Ali Jaamac Jangali iyo Jamaal oo noo fadhiyay Kenya iyo dhammaan intii la soo shaqeysay hay'adda iyo wasaaradda intaba ah iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaan la soo shaqeysay in konteenaradaasi ay noo yimaadaan halkan la keenay. qalabkan oo ah mid casri ah isla markaana ku shaqaynaya habka dijitaalka ayaa waxaa xariga ka jaray wasiirka gaadiidka iyo duulista Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad, waxaana mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee kulankaasi ka hadashay ay sheegeen in muddo 90 cisho kadib xafiiska laga kontaroolayo hawada Soomaaliya uu si buuxda ugu shaqayn doono magaalada Muqdisho.